oo ka tirsan golaha wakiilada ee Soomaaliland lagana soo doortay xisbiga talada haya ee udub ayaa maanta si weyn u dhaliilay qaabka ay xukuumadda iyo xisbiga udub ay ugu diyaar garoobayaan ama ku wajahayaan doorashada madaxweynaha ee dhawaan la filayo inay dhacdo. xildhibaan Aareeye oo shir jiraa'id maanta ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa dhinaca kalena waxa uu sheegay in raashin ay xukuumadda Soomaaliland ay u dirtay dadkii ay roobabku ku waxyeeleeyeen gobolka Salal in dhaxda laga leexsaday oo aan raashinkaasi la gaarsiinin dadkii loogu talagalay. shirkan jiraa'idii ayaa xildhibaan Aareeye oo ugu horeyn ka hadlaya sida uu u saluugsan yahay jidka ay xisbiga udub ay u marayaan shada waxa uu yiri xisbigan anu aan ka tirsanahay udub durmaanka uu tumayo waa durmaan xaqiiqada ka fog waa mid aan lagula tartamayn macaaridka aw xifaaltanku naga dhaxeeyo waxaa loo baahan yahay durmaan beenbeena oo aanan xaqiiqada ka fog xisbigii udub ee ahaa hormuudka Soomaaliland ee aayihii iyo dhaxalkii Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal ahaa afartaa xaraf ninna kuma wehelin marxuumkii dhintay Allah u naxariiste haddaba madaxweynaha maanta jooga udub ma macna tirine been badan iyo khayaali badan ayaa ku socda. dhinaca kalena xildhibaan Aareeye oo ka hadlaya raashinka uu sheegay in laga leexsaday dadkii ay roobabku waxyeelada ugu geysteen deegaanada Saylac iyo meelo kale oo ka mid ah gobolkaasi Salal ayaa yiri waxaa kaloo nasiib darra ayaan darro weyna raashinkii xukuumadda ka soo baxay sida igu maqaala ah ee haytuulayaashii ii soo sheegeen iyo dadkii deegaanka deganaa wax gaadhay raashinka dadka ma jiro. xildhibaan Cali Sheekh Ibraahim Aareeye oo horena wasiir uga soo ahaan jiray Soomaaliland waa xildhibaanka kaliya ee ka soo jeeda deegaanada Saylac ee isagu ka qayb qaatay doorashadii loogu tartamayay golihii wakiilada ee Soomaaliland ee hadda fadhiya ee la doortay sanadkii 2005 kadib markii dhammaan musharaxiintii kale ee deegaanadaasu ay iyagu qaadaceen iyagoo ku sababeeyay in doorashada lagu hagaajiyay xilli aanay dadkooda reer guraaga hayni ku sugnayn xuduudda Soomaaliland gudaheeda iyo gobolkooda.